والله waxaa la leeyahay baarlamaanka 105 mudane ugu yaraan ayaa waxay wataan dhalasho aan Soomaali ahayn oo jinsiyada kale ay wataan bal inta aan u iman kuwaas kale falanqeyntooda adiga kuwee ka tirsantahay aniga dhalasho labaad waa haystaa waxaan haystaa dhalasho wadan Canada waxaan isleeyahay waa ka khatar yarahay kuwa dhalashada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyo wato wadamada yani mataqaana dariska waa ka khatar yarahan leeyahay laakiin aniga waxay ila tahay dhalashadan waa wax ka dhashay colaadi dadkan anigu Canada wiligeena ma tageen hadii aan wadanku burbur ku imaan lahayn marka anigu ma aaminsani inay dhibaato weyn ay tahay marka laga reebo kuwa ama ku abtirsado wadamadan dariska marka laga reebo anigu wadamadaas hore dadka ka yimid dhibaato weyn uma arko xagga daacadnimada ee wadankii daacad u ahaanaya laakiin waxa la isweydiin karaa sidee qof laba qaran matali kara ee dhinacna Soomaali ka ah dhinacna dal shisheeye dhalashadiisa ka wata labadii dal oo u dhaxeeyay oo labadaba daacad ugu noqon kara waliba marka aan Soomaali u imaan oo meesha aan rabay inaan tilmaamo waa adag tahay in daacadnimadaadu ay laba u qaybsanto taas waa xaqiiqo waaye marka wadanku ka fog tahay oo wadamo aad yani aan Soomaaliya dana badan kala haanaynin yani dhalashadiisa haysatid waa ka khatar yar tahay marka dhalashadaadu ay mid runaba sii tahayba oo ama Ethiopia aad ku dhalato nin Ethiopiana ba tahay laakiin marka la isweydiiyo tusaale danaha Canada ee Soomaaliya ka leedahay hadii ka Cabdullaahi ahaan adiga lagu wakiisho ilaa sharcigoodii baad wadataa Soomaaliyaanay muuqan kareen in aad danahaasi fuliso adigoo shacabka Soomaaliyeed hagardaameyn kara waa laga yaabaa yani inta badan waxay ku dhici kartaa dhinaca basaasnimada oo runtii qofkii in loogu soo dugaalo dhalashadaas in basaas uu noqdo iyo wax noocaas laakiin aniga hadda waxaan isleeyahay duruufta hadda Soomaaliya maanta taagan waxyaalaha ugu horeeya ugu dhibka badan ma noqon doonto laakiin in isha lagu haayo dadkan dhalashada gaar ka wato in hay'adaha nabadgelyada wadanka ay isha ku hayaan waxa ay yihiin waa muhiim walow ay si adkaanayso maxay qofkii waaba xildhibaan wuxuu leeyahay xasaanad ilku haynta laftirkeeda ayaaba dambi noqonaysa yani sharcigeena daafiirsi marka runta khatartaas way jirtaa aadan u aaminsana khatar inay jirto laakiin waa mid lala noolaa karo inta duruuftan kale waa weyn lala macaamilayo maalintii aan ka baxno duruuftaas wadanku dib u xisaabtami doonaa yaa mas'uul u noqon doonaa imaad doonto arrinta markaas ayaa aaminsanahay inay habboonaa lahayd in lala macaamilo mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa tahay in badan fahansan waxa wadaniyadu tahay oo siyaasiga waxa uu qaban karo Soomaaliya marka imaanana waxa la samata bixinayaa dal rubac qarni baaba'sana misdhehe kartaa mudanayaashan baasaboorada wata iyo siyaasiyiintan sharciyada shisheeye wata way wanaagsanayd inay jaanis siiyaan kuwa daljooga ah oo og Soomaaliya dhibaatada ay marayso waa runtii waa su'aal wanaagsan laakiin aniga saas ma qabo wadankeena markuu burburay aqoon soo dhismaysay sanado ilaa xorriyada intaan qaadanay soo dhismaysay ayaa subax wadanka ka hayaantay marka aqoontaas baxday anu ma aaminsanay qoladan wadan gudihiisa wax ku baratay inay bedeli karaan ma aaminsanay maxaa yeelay waa la shaqeeyay waa arkay tayadooda arkay iskoolaadka xamar waxa ku dhex taalo 100 iyo xoogo miyaa maqan jaamacadood oo mid walba magac dariiqa yani sidii tabakaayada loogu qorqoray jaamacadahana waa naqaanaa waxay yihiin iyo dadkay soo saaraan iyo quality-gooda iyo waxay yihiin si fiican u naqaanaa marka wadanka dana ugu jirto aqoonti ka tagtay inay soo noqoto laakiin qatar baa la muujinayaa inay jirto dhanka kale oo ku aadan dadkan inaanay daacad u noqon karin Soomaaliya sababtuna loo samata bixi waayo waqti dheer oo jaanis yeesho Soomaaliya inay dhankaasi ka taagan tahay may saas lama dhihi karo runtii wili ma arag qof dibadda ka soo noqday oo ka xamaasad yar oo ka dadaal yar oo ka shaqo yar amaba yani mataqaanaa dabandaabyo sameynaa ma arkin mana qaba inay taas jirto
laakiin xiisad waxaa jirto dadka wadanka gudihiisa wax ku bartay ee joogay iyo dadka yimid ay u dhaxayso muxuu ahaay xogo isriixriix yar loolan ka dhaxeeyo inta badan waxaa aragnaa sirta dowladda Soomaaliya iyadoo ay faafinayaan hay'ado kale tusaale waxaa la sameeyaa dib u eegis ay hay'adaha sameynayaan mararka qaar waxaa jira research ama baaris ay ku hayaan siyaasadda Soomaaliya oo kale arrimahaasi ayaa la yiraahdaa waxaa xogtaasi bixiya dadka labada sharci wata taasi maxay miyayna noqon kareen war jira maaha warkaas war iska waxa waa fadhi ku dirir waay muxuu ahaa dadkan labada jinsiyad wata ee wadanka ku soo noqday ee aqoonta soo kordhiyay ee dhaqaalaha soo kordhiyay mataqaanaa xirfadda soo kordhiyay lama dhihi karaa waxbay gudbiyaan wadankaana sir u qarsoon miyaaba jirta wax hadda qarsoona la qarinayo ma jirto mar hadiiba ciidankaagi mushaar uu dad kala siinayo ajnabiga ee intay soo istaagaan iyaga ay payrollka istaagayaan ay ogyihiin inta mushaar qof ay siiyeen ay ogyihiin dadku yani wax ku qarsoon oo kala miyaaba jira yani anu ma qabo warkaas waa war iska mataqaanaa iska meel hoos ah Soomaaliya imika doorasho ayaa ka soconaysa la rabo in 8 bisha madaxweynaha soo socota madaxweynaha Soomaaliya lagu soo doorto bal ka sheekee faragelin intee leeg ayay wadamada jaarka la Soomaaliya iyo kuwa aan jaarka la ahaynba Soomaaliya ay ku hayn karaan doorashadaas amaba hadda ay ku lug leeyihiin waa su'aal aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed runtii aad ay uga dharagsan tahay faragelinta shisheeye dowladda Imaaraadka waa la sheegay lacag badan ay halkan ku hayaan lacag ay xaq ku hayaan maamul goboleedyada meel isku geynayaan xagee kala waxaynayaan danahoodana Soomaalida siday u arkaan aad ay uga sheekaystaan khaasatan dadka siyaasiyiinta muxuu ahaa wadanta waxaan ay u faragelinayaan aad looga warqabaa dowladda Ethiopia maba laga hadlayo faragelin maahana gacmaha dhana kula jiraanba oo runtii si aan caadi ahayn ayay faragelin u sameeyaan ilaa inta aniga aan ka warqabay xitaa shakhsiyaad oo xubno baarlamaanka xitaa ay la hadlaan ilaa adiga 3 qof aan arkayba oo ii sheegeen Ethiopia nala hadasho sanitary inta kalena lamaan ka tirsan inta kalena waxaan arkaynaa gacmo maroojin badan oo yani mataqaanaa laga sheekeynayo oo la waxaynayo dan uguma jirto inay saa sameeyaan haday yani mataqaanaa si yani saalix u fikirayaan dowladda Kenya laftirkeedu kama mara faragelinta waad arkaysaa mas'uuliyiintu inay halkan wada imaanayaan la shirayaan yani muxuu ahaa sumac lagu hayo meeshaas danaha Soomaaliyeed ayaa laga wada hadlaya waxa laga hadlayana waa dowlad ajnabi oo daris dowlad Djibouti faragelin laftirkooda way ku hayaan laakiin faragelin Soomaaliya waxay aaminsan tahay inay saameyn muxuu ahaa wax faa'iideynayso faragelintoodu leedahay saas la aaminsan yahay anna waa aaminsanahay inay saas tahay wadamada kale ka baxsan muxuu ahaa regionka iyaga laftirkooda faragelin way ku hayaan laakiin waxay doontaa ha noqoto faragelintan aakhirka wax dooranayo waa 328 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliyeed matalaya aqalka sare iyo Cabdullaahi waan kartay waxaad ii sheegtay in dawlado fara badan ay Soomaaliya faragelin toos ah ku sameynayaan hadda banaato ama yaanay dad badan mudanayaal baa ku sheegay in dawlado shisheeye wax u soo sheegtay oo adiga ba qareyso soo lama dhihi karo dadkan Soomaalida wax dooranaya bulshada waxa looga dhigayaa dad Soomaaliyeed laakiin waa dad badankood huwan shaatiye shisheeye oo aragtiyo shisheeye wax ku dooran kara Soomaaliya muuqanayta hadday taas muuqanayso runtii cabsideeda iyo warkaygu inta waa ka duwanaa lahaa waa shakhsiyaad haddii ay jirtana waa shakhsiyaad ana waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka maanta u fadhiyo inuu baarlamaan u shaqeyn doono oo danahooda ka shaqeyn doono uu yahay aaminsanahay mana iska lihi warkaas iyo baarlamaanka ka tirsantahay amaan waan dareensanahay maxaa yeelay waxaan la kulmay baarlamaanka xubno aad u fara badan runtii qulubtooda iyo niyadooda iyo wanaagga iyo sidii u fikirayaan waa waxaan isleeyahay waa ku ammaanay laakiin siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood waxa muuqanaya in arrin kale ugu hoos jirta Imaaraadka Soomaaliya gacanta Soomaaliya u gashteen haddii aanu dad haysan
Ethiopia iyo Kenya arrinta Soomaaliya siyaasadooda faraha lamaanay galeen haddii aanay gabaad lahayn dowladaha ka sii shisheeyana kulley waa caynkaasi oo kale maxaa siyaasiyiinta ka dhigay ninkii bukay ee boqolka u talisay horta ninkii bukoo boqolka u talisay waddanka oo dhamaaba ahba laakiin anigu ma rabo inaan niyad xumo ka muujiyo arrintaas maxaa yeelay waddan aan la faragelin ma jiro annagaan laftirkeena Soomaalida ah oo itaalkaas lahaa wadamo kale faragelino waa iska caadi